السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga ah waa channelkiini maama sharaf oo idin leh soo dhawaada meel kasto dunida daafeeda ka joogtiin walaalahayga qaaliga ah maantana barnaamijkan idin haya waxay tahay walaalahayga qaaliga ah qiso aad iyo aad u cajiib badan una xanuun badan una dhibaato badan ka dhacday xaafad agteena walaalahayga qaaliga ah oday baa wuxuu joogtay shantii wiil kamid ah maalmaha kamid wuxuu yiri ilaa aabo waa inaan rubac jaada lacag ku gato isiisa warniyo wiilo lacag maha iga tagmaandho xagas maya ina isiisida jirto wiilkii odaygii soo dhahaayay walaalahayga qaaliga waxa dhacday odaygii ma haay waxba lacag ma haayo niyo dhaaf ordayga tag wiilio oo dhahay in asagii odaygii uu soo qaatay xabad madaxa kaga dhuftay walaalahayga qaaliga aabihiis odaygina meeshii ku geeriyooday walaalahayga qaaliga maxaa kooskareeyo keenay dhibaatadaas waxa waaye maandooriye ayuu cunay maandooriyahaas oo koleyba wax walba ka dhigay jaadkana sidiisaba qof jaadka u bartay cunowgiisa ma ahan maskaxdiisa mid nadiif ah walaalahayga qaaliga haddii qofku qof fiican oo maskaxdiisa ay fiican tahay uu yahay ma uusan dilin aabihiis subxaan allah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun odaygii meeshaas ayuu ku geeriyooday walaalahayga qaaliga isagoo u dilay wiilkiisa rubac jaad ah odaygina meeshii meedkiisii laga qaaday asagina wuu u fakaday marka walaalahayga qaaliga waxaan iska codsanayaa inta cunto bahalkaas in ay ku fakarto sida isaga dhaafi lahayd sababtoo meel xun ayuu kusoo istaajinayaa oo markaad u baahatid lacagna aadan haynin inaad qof soo dhacdo ama aad qof disho waa aad ku fakaraya qofka lacag haayo lacagta isii uu kaa diido waa aad ku fakaraya inaad dishid walaalahayga qaaliga sababtoo maankii baa eber maandooriye waaye jaadka ma ahan wax fiican walaalahayga qaaliga waa inaan ka fogaanaa iska dhaafnaa cunowgiisa ilaa waad aragtiin sidoo u dhibaateynayo dadka meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa 1 jeer in ay iska dhaafaan kuwa cuno iyo kuwa gadaba naagta gadaysa iyada laftirkeeda ilaahay meel kale uga raadisay siraaqada inay iska dhaaftaa roon sababtoo wax walaalka dhibaayo inaad adigana naf ka soo raadisid wallahi waa dhibaato oo maanta lacagtaad ka bixisid maradaas aad ku gadato hataa salaadeeda ma gashaa lagu leeyahay salaad ma gasho hadduu dhintana qofkaas jaadka milkiilaha weyn ee lacagta adduunyada haysto hadduu dhinto maanta dad baa karfanta looga soo qaadaya lacagtiisa hantidiisa laguma duugayo wallahi saas baa wuxuu yahay in anaga dadkeena inta fakarno aan iska fogeyno iska dhaafno kan cunaayo itangadeysaba ay ka talansusho wax ka fiican ma lahan walaalahayga qaaliga sababtoo ay dhibaatadaas ayuu leeyahay marka wax laga fogaado waayo walaalahayga qaaliga marka waxaan iska baryayaa inaan iska dhaafno oo aan ka tanasulno asaga dhan dhib iyo dhaawac iyo dhibaato ma ogi faa'iido kale oo leeyahay ma lahan bahalkaas arrintaasna waa arrin aad iyo aad u xun walaalahayga qaaliga nin dhan oo aabihiis u dilay rubac jaada wallahi wax laga xumaado waa wallahi billahi allah ilaahay rabbi raxmaano ummadeena nooga reeb bahalkaas rabbi raxmaano ilaahay rabbi raxmaano naga qabo waxna jiita oo leeyahay ma lahan ilaahay intii baratana ilaahay ka reeb rabbi raxmaano intii cunowgiisa baratay ilaahay rabbi raxmaano ka qabo waxna jiita ama wanaaga oo leeyahay ma lahan waa maandooriye waa maskax dile waa reer kala dumiye waa daroogo aad iyo aad u xun dad baa umaleeya inuu jaadka waxba uusan ahayn umaleeyaba inay yani wax qudaar cunayaan oo kale laakiin qudaar maaha kan waa maandooriye hadduu ninkaas maanta maskaxdiisa fiican tahay aabihiis miyuu dili lahaa rubac jaad oo aabihiis u dili lahaa maanta inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun wallahi dilkii wuu iska soo batay oo bilaa micno dadka la isaga dilaayo walaalahayga qaaliga rubac jaada aabihiis u dila hadda ninkaas wax laga xumaado wallahi billahi tallaahi wax laga xumaado oo laga argagaxo waa walaalahayga qaaliga inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay rabbi oo naga qabo ilaahu asagana u naxariis rabbi oo raxmaano waalidka ninkii waalidkiisa iska daa dil oo dilay indhahaas indho kul ugu taago wallahi billahi waa laga jaaseynaya gacan aasaarta iskaba dhaaf walaalahayga qaaliga waalidka wax lagu ciyaaro ma waalidka waa wixii adigoo waxba ahayn wax ka dhigay waalidka waa adigoo haddii xagga lagu dhigay yaanyuurta ku cunayso oo quraanshada ku cunayso aad iska celi karin kusoo xanaaneeyay qof weyn kaa soo dhigay
idabta kusoo baray maasha allah tabaaraka allah ilaahu dambigeen dambi waalidkeen bacfi rabbi raxmaano oo ilaahu waalidiinta meel walbay joogaan rabbi raxmaano dhibka iyo rafaadka ka bixi oo ilaahu rabbi raxmaano awlaada noo xafid oo ilaahu awlaada noo soo hanuuni rabbi raxmaano ilaahu awlaada noo soo hanuuni oo ilaahu awlaada noo xafid rabbi raxmaano wallaahi bilaahi waa wax laga xumaado alla ilaahayow rabbi raxmaano awlaada noo xafid oo ilaahayow rabbi raxmaano waalidkeen rabbi raxmaano cadaabta ka xorey oo ilaahu rabbi waalidkeen dambigiisa dhaaf rabbi raxmaano waalidka ciyaar ciyaar ma aha asxaabteeda qaaliga ah waalidka wallaahi bilaahi tallaahi ninkii og baa og ninkaan ogeyna ilaahay ha ogeysiiyo waalidku waa wax wanaag badan ilaahu waalidkeen rabbi raxmaano iyo waalidiinta dhanba cafi rabbi raxmaano dembigooda oo ilaahay inta dhimatana u naxariiso janno firdowsa ka waraabi rabbi raxmaano asxaabteeda qaaliga waalidkaaga nin walbo waalidkaa waa inaad u naxariisataa waa inaad waalidkaa aadan ilxun ku fiirin waa inaad waalidkaa aadan dil iskaba dhaaftaa hadalka aada kusoo celin hadalkaas aada kusoo celin hadduu ku dilo iyo hadduu ku daayabo waa inaad waalidkaa dhaaftaa oo waalidkaa u naxdaa marka walaalahayga qaaliga ee waalidka hala dhowro waalidka waa wax wallaahi bilaahi tallaahi adoo waxba in wax kaa dhigay marka waalidka wallaahi bilaahi tallaahi aniga aada iyo aada uga xumaada ani ahaanteeda wallaahi bilaahi markaa maqlay rubac jaada u dilo aabihiis ninkaas wax laga xumaado maysan ahayn asxaabteeda qaaliga ah yaa ilaahayow rabbi raxmaano awlaada noo soo hanuuni ilaahu awlaada noo xafid rabbi raxmaano ilaahayow rabbi raxmaano qurunkaas wixii bartayna ilaahu rabbiyow ka reeb ilaahayow rabbi raxmaano waalidkeen dhaaf ilaahu dambigeena iyo dembi waalidkeenba dhaaf rabbi raxmaano ilaahu inta dhimato u naxariis ilaahayow inta noolna dhibka ka bixi rabbi raxmaano walaalahayga qaaliga waxaan isku ognahay in waalidka loo naxariisto oo aan waalidka lagu afcelinin oo waalidka indhaha aan lagu gubin oo waalidka wuxuu rabo raalikayaa loo sameeyo waa saxaabteeda qaaliga taas ayaan iska codsanayaa nin walba waalidkiis inuu waxaa fiican oo u naxo oo waalidka haddaa wanaajisid awlaadaada ku wanaajinayso haddaad waalidka aada wanaajinni awlaadaada kuma wanaajinayso waalidkaa waddada amarkiisa ayuu wiilkaagana ku marsiinayaa asxaabteed waxaan isku ognahay in waalidka laga dambeeyo in waalidka lagu afcelinin in waalidka soo rabo loo yeelo asxaabteeda qaaliga ah inta dhimatana ilaahay ha u naxariista asxaabteeda qaaliga ah haddaa ku cusub tahay janalkeyga sabskraib dheh laagna ii saar ii sheer garay commentna ka bixi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu